Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho 15kii Ramadaan kuna beegneed 22kii bishii la soo dhaafay ee May kadib markii uu xanuunsaday sida ay ogaatay caasimadda online sida ay ila waraadiyo lagu kalsoon yahay u sheegeen caasimadda online Abu Mansuur ayaa ka xanuunsaday kaliyaha waxa uu isbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood ah waxaa la dhigay qayb gaar ah oo loo diiday shaqaalaha iyo guud ahaan dadweynaha waxaana arrintiisa gacanta ku haya dhakhtarka ugu sareeya Digfeer oo u dhashay dalka Turkiga Sheekh Mukhtaar Roobo oo hadda wanaagsan oo xaaladiisu soo hagaagtay ayaa la sheegay inuu xanuunka kaliyaha horay u qabay isla markaana uu marmar ku soo kaco markii uu ka soo baxay al-shabaab ayaa sidaan oo kale waxaa horay loo dhigay isbitaal waxaana sababihii ugu soo biiray dawladda la sheegay inay qayb ka ahayd arrinta caafimaadka dhaqaatiirta caafimaadka Abu Mansuur ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay waxayna u qoreen dawooyin iyo dhaqaatiir gaar ah oo la sheegay inay siin doonaan dawadaasi sida ay caasimadda online u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan isbitaalka Digfeer sidoo kale arintani waxaa caasimadda online u xaqiijiyay nabadoono iyo saraakiil u dhow Abu Mansuur ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan arintani saraakiil ka tirsan hay'adda NISA oo ay arintaasi wax ka weydiisay caasimadda online ayaa sheegay inaysan wax badan ka ogeyn arinta Abu Mansuur isla markaana uusan ogaa karin qof kasta balse ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiin sarsare oo kaliya